Asalaamu calaykum waa Dr. Mawlid ku daro dhammaantiin baydi salaamaya. Halkii waxaan kasii wadaynaa casharadiinii ku saabsanaa microbiology ama barashada ilma aragtiga. Marka casharkan waxa uu ku saabsan yahay Staphylococcus-ta dahabiga la yiraahdo ama Staphylococcus aureus buu ku saabsan yahay. Marka waxaan rabaa in waxaan ka sheegaynaa waxa weeye waa astaamaheeda lagu garto ayaan ku bilaabayna. Marka astaamaha lagu gartaa maxay tahay? Astaamaha lagu garanayo waxaa ka mid ah ay tan gaarka u leedahay waxa weeyaan in ay ku kori karto oxygen la'aan oo ay anaerobic tahay. Laakiin haddii oxygen heshana way ku kortaa ku tarantaa iraahdo. Waxa talabaad waxa weeyaan dhanka ma samayso dhaqdhaqaaq ama waa non-motile weeyaan ma soconayso. Ma samayso waxa la yiraahdo sporka waxa la yiraahdo ama sporka waa maxay? Waa waxay isku daharaan bacteria isku ilaaliyaan lakaba way yar tahay waxa weeyaan xajmigeedu waa mid aad u yar waxaanay leedahay midabka hurdiga ama dahabiga ah bay leedahay waana markaa sababta loogu bixiyey maxay aureus marka ama dahabiga baa la dhahaa markaas halkan ka aragtaan halkan waxa weeyaan ay leedahay waa ninka halkan kusoo waray muuqaalkeeda idin soo gudbiyey ama iyadoo waxay leegtahay bahalka qofka hadduu arkay gobka bahalka la yiraahdo kale midhaha gobka oo kale bay leedahay ama kariirtoo kale waad oran kartaa sidoo kale dhanka agarka marka lagu samaynayana waa talkan iyadoo ay taal taas waa taas dhanka kale haddaynu ku soconooyin waxa weeyaan halkee laga helaya marka badanaa waxaa laga helaya maqaarka ayaa laga helaa sidoo kale waxaa laga helayaa dulka sanka ama sankaas dulalkiisa waayo marka qofka uu neefsanayo hawadan gelaysa waxa gelaysa la socota bacteria virus marka halkaas lagu qabanaya meesha ugu badan laga helana waa halkaas qofka dadka waxa jira haddii qofku uu sameynayo cuntada dadka ku sameeya meelaha suuqyada oo kale haddaad aragto qof waxaa sameynayo sankan farta gelinaya waa inaad ka cararto oo aad aanad qofkaas waxba ka iibsan amaba haddii ogaato halkaas inay meeshaas tahay in wax laga qabsatay caafimaadka aad ogeysiiso ciddii waxaa samaynaysa waxaana laga qaadaa xanuunkan aynu ka hadli doono marka waxa weeyaan gastroenteritis ama waxa xanuunkan la yiraahdo food poisoning sumoga cuntada ayaa laga qaadaa marka weli xanuunada iyada lafteedu gelinaa sida loo gudbiyo marka waxyaabaha loo gudbinayo waxa ka mid ah waa gacantii waa adigan dee gacantaadii salaamda qof oo santiri dahdan qof salaamtay qofkiisa suuq qaada haddaad ku hundhisto kale qofkii cunadana lafteedana waa laga qaadaa haddii qofku cunad meel la dhigo la dabooli waayo muddo taalo ku qabato dadna qofku iska imaado saas cuno iyadana way ku imanaysaa waxay u badantay badanaa baradhada bahasha la dhaho waxay u badantay intii qabi waato ama saladka bahasha laga sameeyo salad baradho saladhaysan marka haddaad aragtay in dalkan joogo kale way ka sameeyaan baradho waa jirta la jarjarayo dabeetana lagu darayo beed dabeetana salad ruush bay dhahdaa marka way jirtaa marka noocaas kale waa laga qaadi karaa okay hilibka qasacadaysana waa laga qaadaa way ku tarmi kartaa lagama way dib ugu soo gudbinaysaa haddaan ku socono dhanka kale waxa weeyaan waxyaabaha sahli kala fiditaankeeda maxaa ka mid ah risk factorska waxa weeyaan nabarka oo kale tusaale haddaad aragtay weli qof la qalay kabacdina nabarkii tusaale dumarka u bata badantay saanta la qalay gabadha nabarkii dhan kasoo furmay deetana halkaa u dhacan ku yeeshay deetana duba loo tulay waa meelahaas oo kale ama nabarada qofkaas oo kale waa ku iman kartaa nabar dubu furmo oo kale ayay ka dhigan tahay waxay ku iman kartaa waxyaabahan ay haweenku isticmaalaan xilliga caadada tombaanada la dhahdo waan weydiiyey baraha bulshadan soo dhigay marka maxaa la dhahaa bahashaas waxyaabaha dumarku adeegsadaan soomaali looma samayn baa layidhi qaar bay waxbay u adeegsadaan magacyo waa jiraan laakiin wax loo sameeyo gaari ma jirto marka tombaan baynu oran karnaa tambon okay waxaa kaloo jira marka qofka la qalo qodobada lagu xidho waxa la dhex geliyaa intaan la dhamaystirin meel yaro dalool baa loo reebaa qofka inta badan qaliinada waxaa lagaga tagaa suuf baan oran karaa suuf qalimeed marka baan anigu turjumin
deetana si hadhow waa laga soo saarayaa markay dee dhammaato maarata qofka la arkay inuu soo ka marka waxa weeyaan in dareerahaas soo dareeraya ay ku dhacdo bahashaas maradaas lagaga tegayo marka waa suufun mara maaha laakiin oo loogu talagalay inay halkaas qalajiso waxa kaloo iyadana dee qodobka meel kasto qodob lagu dhuftay oo saa qof marka la qalayo dee ama maarata qodob meel kasta ay tahay jidhka kamida iyadana waa keenaysa waa meelaha ay ku fidi karaan waxaa jirta oo iyadana si maarata ay u badan tahay dadka keliyaha loo sifeynayo maxay tahay waa aniga hore u sheekeynay casharadii hore qofka marka mar walba la gelinayo qarbaadka laga xiraa maarata marka waxaan lagu xiray lagu safeynayo dhiigga qofku waatan mar walba dalooshaa meeshii maarata waa kadee tegay kanolihii baa ku xiran haday tahay kanole caadiya ama haday tahay wada halkaas laga siinayo xididadaas dhiigga laga safeynayo mar walba markay ku xirantay way dee sahlaysaa marka inuu bahashan siifsido bakteeriyadan waxaa kaloo jira dadka iyagana daroogooyinka isku muda iyagu dee laguma sameynayaba dee lama maarata nadiifinayaba dee meeshii iyagu dee caadada sida iyagu sida way ku imanaysaa marka isagoo diirkii hadduu doonto bahasha bakteeriyadii ay dul saaran tahay buu meeshii la duloolinaya saasuu markaa qofkaas ku qaadaya xanuunada ay keento haddaynu ku soconno waxaynu gelaynaa dhankanin haddaba oo aad faahfaahin u baahan dheeraada dhanka waxa la yidhahdo maxay pathogenesiska pathogeneska waxaan sameynaynaa bakteeriyadii baan soo qaadaynaa iyada lafteedii deetana waynu kala furaynaa sababkaad aragto waa iyadii dee saa lagu qaybiyo gudaheeda ad arkayso marka sida casharadii hore aan kusoo qaadnay waxay dee ka siman yihiin qaabka waxaan loo yaqaano gram positive oo la yidhahdo streptococcusna waa gram positive ama gramka tabanan dee soomaaliga turjuma oo qaabkoodii waa isku mid oo waatan dee halkan waxay ku leeyihin maxay dee waxay leeyihiin xubkii cytoplasmkay leeyihiin halka la oran jiray maxay penicillin binding protein marka soomaaliga dee proteinka penicillintu qabsatabana ay leeyihiin waxaa kale leeyihiin qaybtii maaragtay bacterioglycanska qaybtaas aan la kabkaadhanaya maaragtay buluugga aan midabka marinay ay leeyihiin oo iyagu waxay lahaayeen tan maaragtay lakab weyn bay leeyihiin oo ka samaysan maxay bacterioglycanskaas waxa ay leeyihiin marka capsule bay leeyihiin waa capsulada waxa weeyaan qaybtan u sarreysa midabkan u yeelaya capsuladaas waxay ku keentaa inay sidoo kale ku qabsadaan maaragtay bakteeriyada kale isku sida qabsadaan iskuna ilaaliso sidoo kale waxa ay leeyihiin waxaa loo yaqaana lipotechoic acid oo laba u qaybsan lipo iyo techoic acid marka lip waxa weeye waa tan ilaa xuubka cytoplasmka haysata ee dheer marka maxay tarayaan kuwan marka waxay tarayaan waxa weeyaan waxay soo daayaan waxa la yaqaano maxay cytotoxinska soo daayaan marka waa taas aynu markaa ka soconno waxay soo daayaan marka waxyaaba kale jira aynu markaa sii gelayno oo iyada gudaha waynu iman doonaa waxaa loo yaqaano MSCadaas waxay tahay laakiin halkan aynu waxaa jirayin wax loo yaqaano adhesions baa yidhahdaa marka af soomaali ka dhigata adheseno marka af soomaali dhiman waaye afruushka lejisan adgesanis bay yidhahdaa adgesin marka waxaan daadun af soomaali adhesen marka ha noqdo marka adhes waxa weeyaan waa kuwii wax ay ku qabsanayeen baashan markay ku qabsanayso bakteeriyadu unug qabsanayso waa inay yeelato dee meesha ku qabsan lahayd sooma saasaa loo yidhahdaa maxay waa kuwii waa adhesan qabsanay marka waxa weeye waa protein A baa jira kala yidhaahdo waxaa kaloo jira factorka isku duubayaasha laba yaqaan A iyo B waxaa kaloo jira proteinka collagenka ku xidhanto waxaa kaloo jira kala yidhahdo maaragtay fibrin lactin proteinka ku xidhma marka kuwaasina waa adigu waxa weeyaan isku soo duub waa kuwa ay baashan bakteeriyadan intay u qabsanayso meesha ay weerarayso waxa isaguna jira isaguna maaragtay halis ah waxaa kala yidhahdo banton valentine leukocytin waxaa la yidhahdaa ama af soomaaligeena dee ereyadiina aan soo koobay la baan soo koobay laakiin af ingiriisi waa BVL marka muxuu yahay marka waxa weeyaan waa waxyaabaha ay bakteeriyadu adeegsato inay leukocyteska ku dulmiso leukocyteska burburinaysa unugyada dhiigga cad marka waa halis weeyaan waxyaabaha soo daynaysa
waxa kaloo jirta waxaa la dhahdaa maaragtay sunta diir horanka waxaa la dhahdaa marka exfoliating waayo bay dhahdaa maaragtay waxay dhahdaa ingiriisi exfoliating marka waxa weeyaan xanuunada jira lafteedu kani keeno oo qofka maxaa ku dhaca waxaad moodaaba inuu gubtaba diirka inuu ka horan waa anagan u bixiyey diir horan marka sunta diir horka waxaa jirta antijiinada subarka qaar lagu soo koobay marka waa tanaan sheegayey xanuunkii kale isaguna waynu xanuunada waynu imanaynaa waxa weeyaan waxaa la yaqaanaa TSST1 marka muxuu yahay kan isagu qaabilsan marka iyo enterotoxintu labay kala qaabilsan yihiin mid wuxuu keenayaa xanuunka maaragtay TSS-ka la dhaho kan kalena waxa uu qaabilsan yahay enterotoxintu waxa uu qaabilsan yahay xanuunkan aan kasoo sheekeynayna isagana la dhahaa maxay waxaa la yidhahdaa waa kan sumaga cunnada aan kasoo sheekeynayna weeyaan kan qaabilsan marka maxaa kale halkan aynu ka tagnay maaragtay coagulase baa isna jira marka coagulase-kan ay soo daynayaan coagulase-kow adiguna maxaa tahay marka coagulase waxa weeyaan mid isagu qaabilsan maxay wuxuu u bedelayaa waxaa loo yaqaano fibrinta fibrinogenta ayuu wuxuu bedelaa fibrin buu bedelaya marka ma ka dhiganta marka waxa weeyaan waxay bacteria hashan haysataa firsoo kale baaqan la yidhahdo maaragtay furunkoolkoo kale weji kasoo baxa finankaas waxa qofka maaragtay bacteriada samaysataa waxay ku wareejisaa fibrinis bay ku wareejinaysaa saasuu maaragtay noqonaya lakab maaragtay wadiga arkay buuran kasoo baxay qofka haddaynu u nimaadno dhankaas waa dhankaas waxa weeyaan waxaan kusoo koobaynaa dhanka dawooyinka dabaan maxaan u jeedaa xanuunada halkan aan kusoo koobay iyaga waxa weeyaan waxay keenaysaa xanuunka la yidhahdo maxay infectionka gudaha wadnaha ama endocarditis-ka kaas waa mid oo calaamadahooda marka waxaa kamid ah labadaba isku darna marka xanuunada iyo calaamada waxaa kamid ah bukaanku wuxuu dareemaya xumad wadnaha oo uu ka dareemo maxay gunuunac bandhe mar marka waxaa la yidhahdaa sidoo kale daal buu qofku dareemaya waxaa jira absesska ama maaragtay malax samaysanka oo kale inuu keenayo oo muxuu keenaya waa soo buuranka ama finka malaxda ku jirto oo dhugdhugleeya qof hadduu fin kasoo baxay garanaya waa dhugdhug baa laga dareema xasan guudka ah hadda waa melilkii buu keenaya iyo sidoo kale inuu kureel la yeesho maxaa ku xiga syndromeka aan sii sheegaynay waxaweyaan ka sheekeynay TSST1ka aan ka lahayn kaasaa qaabilsan waxaan ku yidhi syndromeka shock sumog marka waa kaas waxa weeyaan waa xumad ayuu qofku dareemaya diir casaad sidoo kale wuxuu kasoo baxaya maaragtay funun kasoo baxay jirka oo dhan maaragtay casaana wuxuu dareemayaa cadaadiska dhiigga hoos u dhacba keenaya waa qofkaas shock waa naga nidhi shock hadduu shock waxaa loogu bixiyaa inta badan wuxuu dhiigga maxaa qofka dhacaya sababtan uu dhacayaba qofkaas taas waa taas waxaa kaloo jirta kan aan sheegaynaa isna infectionka habdhiska dheefshiidka gastroenteritiska weeyaan amaba food poisoningka waa ka keenaya muxuu markaa qofka ku dareemaya cunno sumugaas waxaa ku dareemaa 2 ilaa 6 saacadood marka cunnada ka bacdi sunta jirka gashay ayuu qofka ku dareemayaa ilaalugu calool xanuun ifrun marka hore intaasuu dareemaya inuu maaragtay hungaaco marka dambena waa waxa ku xigaysa waa inuu labada dhanba daba joogteymay oran jiray qofka hungaaco shubmana fitaligaha isaguna uu keenayaa ama cabeeb xanuunadan badan ee kasoo baxa afka maaragtay dadka ama afku dhaca caruurta ayaa kan la yidhaha fitaligaha marka dadka qaar waxay cabeeb buu fitaligu noqonayaa qaarna magac kale ku sheegayeen marka calaa kulli xaal sababta halkan ugu daray fitaligada kale magacii okay marka wuxuu noqonayaa waa finan oo marka hore kuwa cascas oo yar ilaa marka dambe ay dabadda usoo wada baxaan ama weynaadaan marka cabeebkan afku kasoo baxa marka caruurtu inta badan marka kasoo baxaan finan afka saa ugu wareegsan fitaligu okay infectionka lafaha isaguna marka jira muxuu markaa noqonaya waxa weeye waa lafa xanuun xumad
casaan barar unugeed markaa barar baa meesha kasoo baxaya waxaan kusoo koobinaa kala infectionada qaliinada marka ayaa isaguna qaliinkii dee waynaga soo sheegaynayo marka meel la qalada qofkii watanayo meeshii barar bay yeelanaysaa wax yeelanaysaa madax kasoo baxday yeelanaysaa meesha lafteedii marka waxyaabahaasoo dhan buu isaguna koobsanaya marka xumad dibaata qof yeelanaya caabuq unugeed iyo madax meesha kasoo baxaysa marka taasina waa taas haddaynu ku soconno dhanka baaritaanka maxaa loo baahay baaritaanka markii aynu bacteria weeye marka koowaad waxa weye haddii xanuunkii keenaya la arkay ku xiranta marka hore hadduu finan weji kasoo baxaya waxyaabaha wejigii baba dee sheegaya finanka waxayd wuxuu yahay taas waa taas dhanka kale marka waxaa loo baahay marka in la qaado markaa baaritaan la sameeyo oo qofkii la baartay tahay ku dhiigeed haday tahay ku maaragtay dee malaxda lafteeda laga qaadayo oo saa loo baarayo marka waa taas ama maqaarka laftiisa haddii meeshaas waxaan jarjaray unugoo kale tahay laleeyahay waxaa jartay kana jartay maaragtay bacteriadan in maqaarka laftiisa la qaado saana lagu baaro marka taas waxa weeyaan marka ta kale waxa weeyaan inay noqoto maaragtay gram post maaragtay togen inay tahay weeyaan waxaa kale ku xigaya waxa weeyaan marka agarka maaragtay laga sameeyo ama ha noqoto mid dhiiga agarka lagu sameynaya waxay qaadataa ilaa maxay 18 ilaa 4 saacadood bay qaadanaysaa waqtigaas dhanka biochemical ahaanta waxa maaragtay ay meesha lagu ogaanaya waxa weye waa inay catalase positive tahay coagulase positive iyo DNase positive intaas baa markaa biochemicalka maaragtay lagu ogaanaya inay tan tahay dhanka molecularka kale tusaale maxaa lagu ogaanayaa waxaa lagu ogaanaya nidaamka loo adeegsado la dhahdo 16S ama 23sRNA PSR ayaa ka lagu eegaya haddii haddaba ay jirto maxaa markaa lagu ogaanaya waxa loo yaqaano methicillin resistance Staphylococcus aureus ama loo yaqaano MRSA waxaa lagu ogaanaya in la baaro anagii soo sheegnay muuqaalkan markaan xaggeen soo wadnay dad duub noqoto pathogenesiska dhanka DNA-ga waxa ku jirta waxa la yidhaahdo MECA genes ama MECA geneskaas marka la eegaya kuwaas marka lagu ogaanaya inay maxay ay resistance jirto methicillin resistance waxaan kusoo koobaynaa daweynta seed loo daweynaya daweynta iyadu waxay ku xiran tahay wixii maaragtay waan ognahay waxaan keenayba marka la ogaado taas kabacdi waxay ku xiran tahay isagana laftiisa haddana nooca yahay haddii meeshaad ay u baahan tahay dee in maaragtay laga sii daayo malaxdoo kale hadday u baahan tahay in siyaabo kale maaragtay loo nadiifiyo kale hadday u baahan tahay taas waa taas laakiin dawo ahaan qoritaankeeda waxaa la siiyaa nafsilinta iyo oxylinta loo doortaa haddii ay tahay dhanka topical hadday tahay to la marinayana waxaa loo dooranaya maxay ta la dhahdo mubirosintan ta la dhahdo ayaa topical la siinaya dhanka kale haddii ay jirto wax loo yaqaano MRSA aan kasoo sheekeynay methicillin resistance Staphylococcus aureus haddii jirtana vancomycinta la siinaya haddana haddii ay timaado lafteedu vancomycin resistance maxaa la siinaya waxaa la siinaya dawooyinka la yidhaahdo maxay pristinka ama quinopristin tay ka mid tahay marka waa taas dhanka daweyntu intay soconayso waxay ku xiran tahay xanuunada laftooda kala duwan ay keenayso haddii xanuunkaasi yahay mid maqaareed ama maaragtay mid unugyada jilicsan ku kooban waxay noqonaysaa ilaa 7 cisho la siiyo haddii uu yahay mid maaragtay tusaale oo kale endocarditis-ka ama caabuqa wadnaha lakabka gudeed ee wadnaha hadduu yahay iyada waxaa la siinayaa ilaa 2 toddobaad baa la siinaya marka waa kaas marka wadaas haddii weeyaan baan ka wadaa maaragtay dhankani maxaa la dhihi jiray unugyada maqaarka guudkiisa ama kuwa jilicsan waa 1 ilaa 2 toddobaad laakiin endocarditis waa ilaa 6 toddobaad ayaa loo qorayaa marka dawada la siinaya marka halkaasaan kusoo koobaynaa casharkan isaga ah microbiology-ga
haddii aad dhamaysata waad mahadsan tahay kule halkan soo dhigay waa youtube-ne like da saar lana sii wadaag haddii aad garanayso arday kaloo jeclaan lahayd inay iyaguna ka faa'iidaystaan oo caafimaadka barata marka waa mahadsan tahay wasalaamu calaykum